أنا wanaagsan dhamaan meeshaan naga daawanaysan halkani waa Hargeysa online aad aad kala dhageysataan ama aad ka daawataan shabakadeena hargeysaonline.net waa waqtiyadii aan ka hadlijinay doodaha siyaasadda Soomaaliland kulba meesha ay marayso caawa waxa marti noo ah Nuux Axmed Cabdi Xudun oo ah aqoonyahan reer Soomaaliland oo aad uga faalooda siyaasadda Soomaalida Nuux Cabdi ma maqlaysaa هذا كم مرة يا كمال الله ها waxaan ku weydiinayaa hadda maalmahan weegan waxa hadda dawladda Soomaaliland ay ku guuleysatay in jabhadii caare la soo afjaray oo sheekada ay ku dhamaatay guul seed u aragtaa arrinka waa farxad leh aad iyo aad waa arrin dadkeena oo dhan ku farxay ummadda reer Soomaaliland oo dhan ku farxaday عدو غير سوماليلاند هكذا حال لكن وضدك غير سوماليلاند وارنا كفر هذا وارنا كجولستين دمان ومضى الشعب سوماليلاند وأدبر كفر waan gartay kadib waxa hadda jira mudooyinkan dambe labadii xisbi oo arimahoodu aad u liitaan maxaad u aragtaa yani xisbiyada Soomaaliland in sheekooyinka hadda soo cusmaanaday ah in ay maantadan ba ay yiraahdeen ba gudidii commissionku hays casilaan seed u aragtaa gudidii commissionku ma tahay mid u baahan in la casilo ama in la bedelo هذا وحالة صدح لحسبي حكومة حسبي كل ميهور كعيسى يلا بدا حسبي معارفي يقولي دي اسحل قاطع يبو صالح كشيء هي international community انتوا واحد سوا فكرتين إلا بدلوا مدحوينون هو قلادين لبدا حسبنا هو قلادين كله haddana ka bacdi dee sidaynu wada arkayna ama aynu warka uga hayno dee madaxweyne waa isbedelay ayaan aad iyo aad ayaan dartay laakiin waxay ahayd wixii lagu ballamay in la fuliyaabay ahayd waxaana ka baxay arrintaa madaxweynihiina iyo xukuumaddiisa waana ayaan daro waxaa loo arkaa inaanay xukuumaddu diyaar u ahayn wax doorasho dhaca haba yaraatee sidee u egtahay waana siday tahay marka hadda waxaad ula jeedaa doorashada Soomaha baarlamaanka oo hadda waqtigeedu aad u dhaafay Soomaha yes saataan u jeedaa waan gartay maxay commissionka sidii loo doortay xaqdarreehay sidii lagu ansixiyay xaqdarreehay wixii markii dambe la iskaga yimi ee madaxweynuhu ogolaaday labada xusbi ogolaadeen way ka baxday dawladdeena way ka baxday taasuna waxay tusaysaa inaanu madaxweynaha iyo xukuumaddiisu aanay doorasho rabin waa waxaad international community-gana way u cadday guddigii xilqaantay reer Soomaaliya reer Somaliland ahaydna way u cadday labada xisbina way u cadday labada xisbina in badan bay u cadday inaanu madaxweynaha iyo xukuumaddiisu aanay doonin inay doorasho ka dhacdo waddanka waan gartay tan commissionka aad leedahay commission hadda cusub ah Soomaha kuwi sanad ka hor ama laba sanadii bar ka hor la doortay doorashadii oo Muuse ku soo baxay sameynayay Soomaha commissionka kuwa gudidaas soo qaar cusub commissionka ugu dambeeyay cusba ayay ahayd in la bedelo ninka aad loo diidanaana waa ninka uu chairman-ka uga dhigay madaxweynuhuna hore u ogaa iyo dhammaan ummadda reer Somaliland hore u ogaayeen inaanu nin dhexdhexaad ahayn xisbiyadu waa diideen maxaa keenay marka ilaa hadda waa muddo shaqeynayaan sanad arkaya ama magacaaban yihiin waa sanadii bar Soomaha meelaha ma inta kaba yar tahay baan u malaynayaa sanad inay tahay ama kaba yarba guddigan waxaan sheegayaa commissionkii ugu dambeeyay laakiin waxa ballantu ahayd markii international community berigii dhaweyd soo dhex gashay xisbiyada iyo madaxweynaha ama xisbigiisa guddigii soo dhex gashay international community-ga ahayd iyo guddigii reer Somaliland ahayd ee ismagacaawday waxay ka aqbaleen saddexda xisbiba in la bedelo lana soo celiyo commissionkii hore u jiri jiray
tiina madaxweyne waa iska bedela waa kii last week isbedelay ee yidhi sharci ii banaynaya ma jirto waana mid runa taasuna maaha in madaxweyne siiraanyo uu bedelay waa la isku diiday waanu bedelay laakiin sida waaltay waxa weeyaan doorasho dadka filanaya iska ilaabay doorasho dhacaysa ma jirto waxa wadankeenu ku dambeynayana sanadka bacdi ilaahay baa laakiin waxaynu ilaahay inuu ka barino inuu wax wanaagsan ay inoogu bedelo waan gartay maxaad loo jeedaa markaa doorasho dhacaysa ma jirto ma commission kana diidan inay doorasho wadanka ka dhacdo mise dawladda ayaa diidanba maya xukuumaddu mada doonaysa inay doorasho dhacdo way yiraahdaan meel kasta madaxweynuhu isu soo taago inkasta ardayda madaxweynaha aynaan aanu meel intuu isu soo taago aanu khudbadayn ama aanu wax sheegin macnihiisu markuu meel isu soo taagana uu istifaacun la yimaado mar walba madaxweynuhu wuxuu yidhahdaa kulmiye diyaar buu u yahay doorashada hadduu kulmiye iyo madaxweynaheena ay run ka tahay inuu doorasho u diyaar yahay commissionku bedeli lahaa waan gartay ama kala diri lahaa ama xubnaha la diidan yahay in dhexdhexaadka noqon karin ayuu bedeli lahaa waan gartay hadda tan aad ka dhawaajisay maxay ahayd toolay xisbiga kulmiye oo kale hadda tusaale ahaan hadda soo hadal qaaday weli madaxweyne muuse bixi ayaa ka ah gudoomiye de wadankana isagaa madaxweyne ka ah beri dhexdaasna waxaa soo baxday in la lahaa waa inuu wareejiyaa siduu siiraanyo ugu wareejiyay isagoo guddoomiyenimada maxaa xisbiga waa inuu isagana u wareejiyaa sheekadaas hadda la isla dhex marayay sheekadaas sidoo aragtaa ilaa haddana ma wareejin ma filaya soo ma uu wareejin weli waa guddoomiye xisbiga waana madaxweynihii wadanka waan garta xitaa haddii xeer dhexaadka ama xeer hoosaadka xisbiga uu u banaynayo inuu madaxweynuhu sii hayo haddana ma qurux badna madaxweynehana kuma qurux badna inuu labadii position hayo waan gartay marka ma xeerka dastuurka somaliland bay ku qoran tahay mise xeerka u gaarkaa xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye xeer hoosaadkooda ayay ku qoran tahay inuu bedelo inuu dhiibo xisbiga marka guddoomiyenimada inuu dhiibo oo ay guddi iyada ka mida ay soo doorato qof kale ama iyagu qaarkood ay tasharaxaan sida imikaba maxamed xaashi uu caddeeyey inuu u taagan yahay musharaxa xisbiga laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu inuu qof kale la rabo ama aanay doorasho ay xisbiga gudahooda aanay ka dhicin ee uu ku wareejiyo qofku isagu doonayo sidii siiraanyaba isagoo ugu wareejiyey una diiday in cid kale la cararto waan gartay kolley waxaad tiri somaha maxamed xaashi waad tiri somiya sidaasaan u malanaya maxamed xaashi waa caddeeyey inuu xisbiga doonayo inuu cararo inuu musharax yahay inuu xisbiga musharax u yahay inuu guddoomiyaheeda maalmihii dhaweedu yurub marayay waa caddeeyey wax qarsoona maaha laakiin u malayn maayo in madaxweyne muuse bixi uu qaban doono doorasho xisbigooda gudahooda oo uu qofku doonayo mooyaane aan qof kale soo bixin saasa u egtay siduu isagu xisbiga ku yimina sidaas ay abtuubuu ku yimi kolley raggii kale doonaya inay la carareen waa kii loo diiday waa kuwii xisbiga ka wada baxay marka sidii unbaa dhacaysa waan gartay marka hadduu tusaale ahaan uu wareejiyo guddoominimada xisbiga kulmiye soo xaq uma leh muuse bixi hadduu taami ka dhamaado inuu soo sharaxo mar kale mise waa inuu hayaa jagada xaq buu leeyahay inuu mar labaad soo sharaxo xaq buu leeyahay waan gartay waan ka gudbayaa ka waxaad moodaa labada xisbi mucaarad inay hadda noqdeen ama midoobeen oo kale oo maxay ahayd tolo waxaa hadda bartay shir jaraa'idkooda ay ku cambaareenayeen xagga dawladda
arrinkaa seed u aragtaa way dhacdaa adduunyada oo dhan bay ka dhacdaa in xisbiyada mucaaridkii ay waxyaalo gaara iska ka wada tashadaan sidii beriyii hore waxaad moodaa intii ka hore inay iskaga soo dhow yihiin gaar ahaan xisbiga kulmiye iyo xisbiga ucud berigii hore aad bay iskugu dhawaayeen laakiin waxaad moodaa iminka ucud inuu kasoo fogaanayo laakiin uu soo durkayo xagga wadani shaqooyin badan oo ay ka wada shaqaynayeenna waan arkaynay dhowaan marka uu midi wadanka ka maqan yahay iminka ka kale ayaa labada xisbiga u jeermaana ama u afhayeen oo u hadla marka inay waxyaalo badan iska ka wada tashanayaan waad aragtaa way muuqataa inkastaana iyagu dee inoo cadayn haddana waad aragtaa inay waxyaalo badan iska kaashanayaan waan gartay waa wax caadi ah adduunyada oo dhan bay ka dhacdaa waan gartay xisbiga ucud iyo faysal cali waraabe waxaa aada loogu xaman jiray in xaggan ay ku yara jiraan dhankan kulmiye ama xaggan dawladda ay ka yara mid yihiin haddana dhankan kale ay u janjeersameen maxaa halkaa kaaga cad marka maxaad u malaynaysaa ma xiriirkii baa go-ay dhankii kulmiye ama dawladda ay isla wadeen waxaa jiri jirtay gabay yaroo atigna deenleydii iyo ku jirtay baa jiri jirto hooyo horta sheekha maxayna sunahay bay tiri haye waxaa tiri abna ma wadaagna walba waxna bay sumanyihiin awrkuunba ku kacsada wax isku dhawaana oo sidaa xidhiir aada oo isku milnaana oo u malayn maayo inuu ka dhexeeyay ucud iyo kulmiye laakiin kulmiye waa isticmaalayay ucud uu isticmaalayay awrkiisaan ku kacsanayay hadda awrkiisiina wuu u kacay xukunkii kulmiye haysta marka uma baahnaa ucud uma baahna iyo faysal cali waraabatoona midna uma baahna waxaaba ku cadaynaysa waa kii maalintii dhaweeday faysal sheegay inuu aflagaadeeyey gacanna ula teegaaray kuna yiri ka baxo ofiska marka waad aragtaa inay labada xusbi sii kala fogaanayaan laakiin wax isku soo dhawaan oo aada isu sii dhaweynaya xusbiga labada mucaaridna ma arka laakiin waxaad moodaa inay waxyaala labadooda xusbi u danaba inay ka wada shaqaynayaan laakiin mid waliba haddana uu wato dee goonidiisa waarinaysa uu wato waan gartay su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya nuuxo waxa weeye waxaa la lahaa madaxweyne muuse biixi britol wuxuu hortegayaa baarlamaanka somaliland maxaad u malaynaysaa inuu kala hadli doono baarlamaanka horta kolley waxyaalaha uu taabanayo waa waxa weeyaan doorashada ugu horeysa laakiin waxa kaloo jirta baarlamaan madax banaan inagu ma haysano wadankeena waxaan leenahay waxaan moodaynaa in saddexda brancheed dawladdu kala qaybsan tahay laakiin saddexda brancheed dawladeena somaliland waa isla halkii waa isku guriga ummadun baa looga wada taliyaa guriga xafiiska madaxweynuhu baa saddex laba looga taliyaa ama maxkamada ahaadaan ama baarlamanka ha ahaadaan maaha markaa baarlamanka wuxuu u sheegayaa waxay baarlamanku iska og yihiin iyo gaar ahaan madaxdooda waa waxay isla og yihiin ayuunbuu dee u sheegayaa waan gartay marka hadda waxaa leedahay wuxuu rabana waan sixinayaa waayo waa dad hoggaansan ama kharash yaroo la siiya ha ku hoggaansanaadaan ama waxyaalo kaloo ha ku hoggaansanaadaan laakiin maaha inuu bari qayb ka mida dawladdeena oo madax banaan ma aha marka wuxuu isagu biri oran doonaa allah ya ilaahay baa og laakiin waxaynu wada ognahay inay yihiin qayb ka mid ah madaxtooyada waan gartay marka hadda waxaad leedahay baarlamaankii somaliland iyo maxaakiimtii ama garsoorkii somaliland dhammaantood waxay hoos tagaan madaxtooyada somaliland leeda miya hadda absolutely taasuma wax maaha qarso wax dadkeena oo dhan og yihiin laba qof un baan ogeyn labada qof baan ogeyna waa qof iska indhatiraya ama qof dee aan macnihii dawladnimada aan fahmin laakiin dadka dawladnimada iyo siday dawladdu u shaqaysa iyo wax inta qaybood ay dawladda u kala qaybsanto fahansani
way fahantiin waana la arkaa. waan gartay waxaan kaloo ku weydiin lahaa Somaliland haddaan kasoo bilowno saddexdii madaxweyne ugu dambeeyay muxuu ahaa Daahir Riyaale iyo Siiraanyo iyo hadda Muuse ah weli kama dhicin ilaa cigaalo kama dhicin qasaas qof dilay oo loo qasaasay. hadda weegan waxaa ka dhacay in 6 qof lagu ku xukunaa dil muddo badan la iska hayay oo lagu fulayay weegan. سألوا أركتا قصاصة نوع عاصر ضد كنت لسكايو 10 سنة كدبنا للدليو. أمرت مركا اعتمادو مركا اعتماد الدنبي قديكو. ها. أنا مركا شرعيا إيجابا ما شرعية الدنيوي خلابا إنه إجنبي هرو مريض مرادية هرو مريض وإحنا قلت لك معه. إحنا قلنا نروح إنه نحيد إنه nation مسلم أنا ضد مسلم واو. وحال ولا سوي كرا قف كي سنة يلا بيا صدق ولا سوي كرا إن خيري سوي شيئا إن خير كيف واحد ترسني أو قف كل جد لينا مكتي قاطان أما إنت خير كي أما من كيف واحد لي غير كود هاي مكتي صوروني هو واحد عكرين لا بس حبس ترى قف واحد ناكره أو واحد يقوين ومعكم لكن ما كي قاعدة 10 سنة إيه لا بيا 10 سنة إيه وحويا كير حكي كير دركسا waan gartay laakiin hadda waxaad yara moodaa beesha caalamku inaanay jeclayn ba inay Somaliland xukunada noocaas dilka ay fuliyaan ma Somaliland maana ahayn wadan muslima mise waxay ka dhigi doonaan ma filayaan meelahan oo kale way qofka meelahan wax ku dilo waa la iska hayaa wadiga ogba gobolada South wadankan Mareykanka qaarna way dilaan qaarna way hayaan Soomaa oo shan laatan sano wax kuma Western world de qaarna waxay leeyihiin waxay aaminsan sida Mareykanka oo kale waxay aaminsan yihiin haddii qof dilo oo ku cadaato dambiga ku cadyahay in loo dilo inkastoo isteeda badan gobollo badan ay joojiyeen sababa ka gaar kuweyn oo ah booliiskooda iyaga Mareykanka booliiskooda corruption ama dadka madow aad dambi aanay qabin saaran maalin walba Mareykanka waxa la soo daayaa qof madow oo 25 sano iyo 30 sano iyo xibna dambi aanu gelin ba oo markan goon la ogaado inay booliisku iyagu case ka sameeyeen laakiin nagu teena tama waxaan imika maanta wadaadkay yar Facebook mala telefoon loo geeyeen loo qariyay inuu telefoonka loo ogoliyay maxaabiisteena ma ogi 12 sano xidhnaa yarka mala la saanood iyo meelahaas laga soo xidhay haddii kaasoo kale dee reer nin dambigiina ku cadyahay dadkiisiina markii ka bixin waayaan ama reerkii qofka laga dilay dambigii ay markii diidaan ay leeyihiin naloo dilo inuu 12 sano xidhnaada maaha waa ama dee wixii lagu xukumay maxkamadeena ay ku xukuntay la sameeyo ama dee qofkii la sii daayo xarigun qofkii lagu hayo maaha waan gartay kaas wuxuu ahaa Nuux Axmed Cabdi Xudun oo ah aqoonyahan reer Somaliland ku sugan wadankan Mareykanka kana faaloodo siyaasadda Soomaalida Nuux aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeena inta ayaan ku soo gabagabeynaa dhamaantiin